muddo dhowr sannadood ah Donald xaaskiisa Teresa Foley iyo laba caruur ah oo ay dhaleen waxa ay ku noolaayeen riyada Mareykanka. Kadib hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da ayaa qaaday weerar waxa ayna soo ogaatay runta. Labadan waalid ayaa ahaa basaasiin u shaqaynayay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Wiilashooda ayaa ka sheekeeyay qisada waalidiintooda. qaybta koowaad ee qisada ayaa ku bilaabanaysa sidan. Tim Foley waxa uu noqday 20 jir 27kii bishii Juun sanadkii 2010 si uu ugu dabaaldego dhalashadiisa. Waalidkiisa ayaa qada u kaxeeyay isaga iyo walaalkii ka yar ee Alex. Waxa ayna aadeen maqaayad ay leeyihiin Hindida oo aan ka fogeyn gurigooda oo ku yaalay xaafadda Cambridge, gobolka Massachusetts, waddanka Mareykanka. Labada wiil ee walaalaha ah waxa ay ku dhasheen dalka Canada, laakiin 10kii sannadood ee la soo dhaafay qoysku waxa uu ku noolaa waddanka Mareykanka. Wiilashan aabahooda waxaa la yiraahdaa Donald. Waxa uu wax ku bartay magaalooyinka Paris iyo Harvard. Haddana waxa uu ka shaqeeyaa shirkad la talin oo fadhigeedu uu yahay magaalada Boston ee dalka Mareykanka. Hooyadu waa Teresa Foley. Waxa ay sanado badan ay ku qaadatay sidii ay caruurteeda u korin lahayd ka hor inta aanay ka shaqo bilaabin shirkad dhismaha guryaha ee Real Estate-ka. Dadka waxa ay u yaqaaneen inay yihiin qoys Mareykan oo caadi ah, balse dadka qaar ayaa aaminsanaa in ay yihiin dad Canadian ah. Dadka qaar sidoo kale ayaa aaminsanaa inay yihiin dalxiisayaal ajnabi ah oo si caadi ah ugu nool waddanka Mareykanka. Wiilasha walaalaha ah waxa ay aad u jeclaayeen xilliyada fasaxyada in ay aadaan qaaradda Aasiya, laakiin waalidku waxa uu ku dhiirigelin jiray wiilashooda in ay wax ka weydiiyaan arrimaha adduunka oo idil. Alex, wiilka la yiraahdo, waa 16 sano jir kaliya, laakiin waxa uu ka soo noqday dalka Singapore halkaas oo muddo 6 bilood ah uu u joogay waxbarasho. Hadda wiilasha iyo waalidiintooda ayaa ka soo noqday maqaayadda. Waxa ayna yimaadeen guriga durba inta aysan nasan. Waxa ay soo qaateen cabitaano khamri ah, balse labada wiil ee walaalaha ah waxaa ka muuqday daal aad u badan maxaa yeelay waxa ay qabanqaabinayeen xaflad yar oo lagu qabanayo guriga si loo soo dhaweeyo wiilka yar ee Alex oo dalka Singapore ku maqnaa muddo 6 bilood ah. Tim ayaa qorsheynayay in uu bannaanka aado. Markii uu dhamaystay cabitaanka wuu istaagay. Waxa uuna aaday xaggii uu yaalay moobilkiisa si uu fariin qoraaleed uu ugu diro saaxiibadii uu la balansanaa habeenkaas. Intii uusan gaarin moobilkiisa waxaa la soo garaacay albaabka. Durba hooyadii ayaa weydiisay Tim in saaxiibadii ay sida ugu dhaqsiyaha badan u yimaadaan guriga si munaasabadda ay u noqoto mid farxadeed. Kadib waxa ay aaday albaabka si ay u soo furto, balse waa naxdin iyo amakaag. Waxaa ka hor yimid koox hubaysan oo dhar madow xiran oo gacmaha ku haysta hub. Waxa ay ku soo qulquleen guriga iyagoo ku qaylinaya waa FBI. Koox kale ayaa guriga gadaal ka soo gashay, kuwana waxay ka soo boodeen jaranjarada iyaga oo qof walbana ku amray in ay gacmaha kor u taagaan. Wiilka yar ee Tim waxa uu maqlayay garaaca albaabka iyo qaylo ka soo yeeraysa guriga dhexdiisa. Markii hore waxa uu u maleynayay in booliisku ay soo ogaadeen in isaga oo da'yar uu cabay khamri, sidaasina ay ku yimaadeen maxaa yeelay booliiska magaalada Boston ee waddanka Mareykanka waxa ay si dhab ah u qaataan qawaaniinta khamriga. Markii uu bannaanka u soo baxay waxaa caddaatay in ciidanka FBI-da Mareykanka ay halkan u joogaan arrin khatar ah. Labadii wiil ee walaalaha ahaa iyagoo yaaban ayaa waxa ay daawanayeen waalidkooda oo katiinado lagu xiray laguna riday baabuur madow oo bannaanka taagneed. Wiilasha Alex iyo Tim ayaa looga tagay guriga iyadoo ay la joogaan askar ka tirsan hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da, kuwaas oo u sheegay in ay u baahan yihiin inay bilaabaan baaritaano 24 saac oo guriga oo idil ay ku sameynayaan. Waxa ay diyaariyeen qol hotel ah oo la geeyay wiilasha. Mid ka mid ah askarta ayaa u sheegay wiilasha in waalidkooda looga shakisan yahay in ay basaasiin u yihiin dowlad shisheeye. Fadlan si aad ula socoto qaybta labaad ee qisada ku soo biir janaalkeena oo subscribe inoo saar.